wafdigani ka socda baarlamaanka Uganda oo uu hogaaminayo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Uganda ayaa waxay kulan la qaateen gudida arrimaha dibadda ee golaha guurtida Soomaaliland waxaana ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Uganda. si gaar ah waxay imika noola jooga baarlamaanka kiil ee Uganda oo isagu gudoomiyaha arrimaha dibadda marayo oo wax badan aan ka wada sheekaysan doono marka insha Allah una dhaafo maalinta qarannimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland loo jeedayo Soomaaliland waftiga maxaan ku rahay baarlamaanka Uganda qof oo aan hogaaminayo gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ayaga hawshoodu way ka yar badan tahay in ay ka qayb galaan oo xafladda May oo ka badan tahay waxa weeye xaq raadis waxyaabo ka jira maxaan ku rahay Soomaaliland iyo geed socodkii maxaan ku rahay باران أو أي هرجيان برلمان كأي حكومة ولا أي هرجيان أي يوجدوا تهاي مرجعي كودو كير بلاري هسلاس ساكا في وحلا شري جاي ما تبدأ يحل بانو كسعودة شوف كذا مركز وحن غور اللي سدا محمد راجد سعود في Somaliland يا كلمات مرة ساير غور اللي يوم محمد راي سدا وقعان تهاي inay noqoto dawlad ayaga maxaan ku rahay taageeraya noqoto oo ay marraba aanay u doonayeen dib ugu noqoto maxaan ku rahay khilaafiyada Soomaaliya ka jira iyo dagaalada ka socda inay dib ugu noqoto oo hadii ay ku noqoto ay ka mid noqonayso mashaakilka ka jira ilaa maanta ee xaq loo leeyahay Soomaaliya dhankooda ayaguna waxa halkaasi ka hadlay safiirka Soomaaliland u fadhiya Uganda iyo gudoomiyaha baarlamaanka Uganda ee arrimaha dibadda aad marwal buu taaganahay sidii qadiyada loo gaarsiin lahaa dalalka aynu jiiraanka nahay dalalka naga fogfog waxa aad inoo importansan dalalka inoo dhow aynu wadaagno amni ahaan dhaqan ahaan iyo tirid ahaanba ganacsi ahaanba inaga dhaxeeyaan marka dawladda Uganda muhiimad weyn bay inagu jirtaa waa dawlad ka tirsan IGAD ودولة كترسان ودولة حرير بدن كده حيث دولة إنه إسرائيل Somalia. One of the biggest tourist attraction in the world to promote tourism. We wish to establish this link with the people of Somalia. gudidani ka socday baarlamaanka Uganda ayaa la filayaa inay ka qayb galaan xuska maalinta 18 May. Maxamed Xuseen Ibrahim, Zamni News TV, magaalada Hargeysa.